shir jaraa'id oo maanta magaalada Hargeysa uu ku qabtay xogyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Abdullaahi Urcade ayaa waxa uu xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay in ilaa hadda aan wax dhaqaale ah ku wareejin guddida komishanka doorashooyinka kadib markii ay xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay in 2 milyan ay kaga qayb qaadanayso sidii loo qaban lahaa doorashooyinka soo socda. haddana waxaan ognahay oo jira oo dhaba in aan lacagtii xukuumaddu ay ku ballan qaaday aanay bixin oo komishankii lacagtii loogu talagalay aan la siin ayaanu ila badan oo xogogaal markaanu ayaa dadka ummaddu ay sheegayaan oo suuqa ku jirta oo isleenay waa dhab taas waxay cadeynaysaa ragga wasiirada kuwii inay rabaan inay meesha sii korsadaan maalin walba oo ay meesha ka tagin doorashada ay dalka ka dhacin. xogyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Abdullaahi Urcade ayaa waxa uu ku eedeeyay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo in xilkii iyo shaqadii hayeen komishanka doorashooyinka ay kala wareegeen kadib markii uu sheegay in magaalada Burco ay ka ilaamiyeen waqtiga la qabanayo doorashada madaxtooyada. waxaan maqlaynaa xukuumadda oo aad iyo aad uga xunaay runtii ku celcelinayna aad uga xunaay in waqtigii muddadii doorashadii timeline-kii ay doorashadu dhacaysay xalay lagaga dhawaaqay Burco oo xukuumaddu ku dhawaaqday. waxaanu leenahay xukuumadda Soomaaliland shuruucdii way ku tumatay sidee bay dalkan doorasho u gelinaysaa haddii iyadu timeline-kii samaynayso maxaa komishanka qaranka loo sameeyey sidee bay u dhici kartaa inay waqti iyadu xukuumaddu qabato tiraa xilligaas ay doorasho dhacaysa awoodda xagay ka keentay awoodda xukuumaddu male awoodda waxaa leh hay'ad qaran oo qaranku ku og yahay ha loo daayo hay'ad waliba awoodday leedahay hay'ad walibana ha ka soo baxdo xilka ay ummadda u hayso. sidoo kale Maxamed Abdullaahi Urcade ayaa waxa uu iska fogeeyay eedeymo xukuumadda uga yimid xisbiga mucaaradka ee wadani oo sheegay in xisbigaasi uu ka soo horjeeday in dalka laga qabto doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada. xalay waxaan dhageysanaynay iyadoo ay xukuumaddu leedahay muddada la kordhiyay dib u dhaca doorashooyinka waxa uu sababa xisbiga wadani aad iyo aad baan uga xunahay iyadoo ummaddu ay wada og tahay xisbiga wadani muddadii markii waqtigii dhammaaday 2015 ahayd madaxtooyadu inay dhacdo doorashadii madaxtooyadu 26 Juun si walba xisbiga wadani wuxuu isku dayay inay muddadaa ku dhacdo komishanka qaranku wuxuu isku dayay inay muddadaa ku dhacdo oo muddada lagu daraa ay noqoto 6 bilood oo keliya waxaa loogu jawaabay inay dastuur qaran jabiyeen komishankii dhammaa ee qaranku lahaa ayadoo wasiiradaadu madaxweyne ay hantidii ummadda iyo dhaqaalihii ummadda ku bixiyeen sidii ay muddo kordhin aan hore u dhicin oo 22 bilooda ay u hirgelin lahaayeen. xisbiga wadani arrintaa aad iyo aad buu uga hor yimid sida bulshadu la socoto ayagoo wasiiradaadu taa ka faa'iideysanaya madaxweyne waxay kordhiyeen muddo madaxtooyadii waxa ka sii daran oo caalamku maanta la yaaban yahay oo aadta Soomaaliland maanta godka ku riday in la kordhiyo 3 sannadood golihii guurtiga oo 26 sannadood hore fadhiyay ama 25 sannadood hore fadhiyay adduunyada wax meel ka dhacay ma inay korsadaan in golihii wakiilada 12 sannadood fadhiyay isagana loo kordhiyay 2 sannadood oo golihii deegaanka la raaciyo oo time-koogba wali aanu gaadhin. nasiib darrada dalka ku habsatay ee ku dhacday ee doorasho la'aanta ee Soomaaliya nagu dhaaftay ee maanta aynu godka madow ku dhacnay waxa uu hogaana xukuumadda maanta aad hogaamiso iyo wasiirada aad soo dooratay ayaa ka shaqeynaya inaanay dalkan doorasho ka dhicin. Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic SABC TV Hargeysa.